وهجاك خدك تليفونك هات وحا يقول شراء سياسي أقوية هندليرا محمد آدن قاعد تسفي عن بعض المغلسة محمد سورة اسمكم مغلية الصحفي السراء محمد أحمد رجال aad baan kuu salaamaya saaxiib waxa kulay xili dambe ayadoo ku tahay haddana sida waqtigaaga aad noo siisay ee aad noo soo jeeday runtii aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya waxaan jecelahay marka hore maxamed anagoo ku salaamayna salaan kadib sidaynu la wada socono madaxweynaha dalka Soomaaliland waxa uu safar ugu kicitimay dalka Guinea oo uu ka helay dhigiisa madaxweynahaasi casuumad rasmi ah safarkaasi dalka Soomaaliya ee Soomaaliland la jaarka ah runtii aad ayuu uga qayliyay kana xumaaday wayna ka hadleen in ay dalka Guinea xiriirka u jarayaan dhinaca kale shacabka Soomaaliland siyaasi aqoonyaha waxgarad dhammaan iyagoo isku duuban arintaasi waa ay ka jawaabeen caalamkana waxay tuseen in aanay Soomaaliya kamid ahayn ay Soomaaliya iyagu markii hore u tageen haatana ayna Soomaaliya wax ka weydiineen meesha ay tagayaan haddaba madaxweynuhuna maanta ayuu safarkii qaatay muddada uu ku soo guriyo noqday dalkii hooyo ee Soomaaliland bal marka hore ka waran safarka madaxweynaha iyo shucuurta ay Soomaaliland ka bixisay guud ahaan aad iyo aad baad horta u mahadsan tahay maxamed iyo idaacadda aad baan idin salaamayaa walaal waa runtaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi socdaal buu ku tegay waddanka Guinea safarkaasi safar guul iyo taariikh ku suntan reebay ayuu noqday madaxweynuhu maanta ayuu dalka dibadda soo dhaweyn ballaaran ayaa lagu jamhuuriyadda Soomaaliland ee Hargeysa dhaweyntaas dhammaan qaybaha bulshada way ka qayb qaateen xisbiyada mucaaradka bulshada oo dhan si heer sare ayaa weeyay shucuur leh oo ka duwan safarada kale ee madaxweynuhu uu dibadda ugu bixiyay runtii safarkaas haddii la yar dul istaago dhowr saameynood bar runtii uu lahaa waa ta koowaade ugu horreysay ee dalalka galbeedka Afrika uu ku tago safar noocan oo kale ah ama booqashadii ugu horreysay intii madaxweynaha ahaa marka labaadna waxa weeyaan safarkaas saameynta diblomaasiyadeed ee ka muuqatay ayaa aad iyo aad runtii indhaha caalamka ku soo jiidatay taasina waxa ay keentay inay saf badan ay ku riday maamulka xamar ama dawladda Soomaaliya ee uu madaxweyne farmaajo hogaamiyo taasi waxa ay soo jeedisay inay bulshadii reer Soomaaliland dhammaan gobollada reer Soomaaliland ku noolaa haday noqoto mucaarad iyo muxaafidba in dhawaaqii ka soo yeedhay xamar uu noqday mid mideeyey ama mid isku duubnidoodii xoojiyey midnimadoodii maaragtay sii laabay oo aragtimida ay ka qaateen runtii kolkaa horta shucuurta madaxweynaha maanta lagu soo dhaweeyay wuxuu ahaa dareen ka dhashay dhawaaqii xamar ka soo yeedhay ee ku aadanaa waddankii uu madaxweynuhu socdaalka ku tegey ee ay dowladda xamar sheegtay inay xidhiirka u jirtay runtii taasoo reer Somaliland ku noqotay wax arrin aad iyo aad yacni aanay marnaba xagga uga eegayn jirto maaragtay laba dowladood wax badan ay ka dhexeeyaan oo bararka jirka mucaaradooyinka inay Soomaaliya ay culaysaan mucaawanooyinka iyo xagga dhaqaalaha Somaliland laga curyaamiyo laakiin xagga diblomaasiyadda dagaal wax badan bay soo dibadda u soo saaray socdaalka madaxweynuhu ku tegay waddanka Guinea kolkaa runtii maanta soo dhaweyn loo dhan yahay oo shacabka Somaliland gobollada oo dhan looga dabaaldegay oo banaanbax salmiya oo lagu taageeray madaxweynaha iyo safarka ayaa dhacay runtii waa si wanaagsan وآد يأد بك هجم هذا اللي محمد runtii soo dhaweynta ka sokow madaxweynaha maanta loo sameeyay dalka Soomaaliland oo sida aynu daawanay ama bulshada caalamka dadka ku sugan ay gud ahaan wada daawadeen soo dhaweyntii cajiibka ah ee loo kala harin sida aad sheegtay markaad eegto hadalka ka soo yeeray Soomaaliya
oo runtii iyagu dalka Guinea xiriirka u jaray shacab fara badan oo iyo runtii siyaasiyiin aqoon-yahan fara badan oo reer Soomaaliland ka jawaabay ka dareen celiyay arrintaasi adiga ahaan markaad eegto adiga waliba ku sugan xaruntii caasimadda Soomaaliland looga arriminayay ee magaalada Hargeysa marka aad shacabka iyo dareenkooda aragto maxaad is leedahay arrintaasi runtii waa ay shacabku ay kaga jawaabi doonaan haddii ay Soomaaliya sii wado hadallada saas oo kale lidiga ku ah Soomaaliland horta maxamed waa runta waxa maalmo kooban laga joogaa koodii Luulyo ama koodii July iyo 26 Juun laba maalmood ku sabtan maaragtay labada dowladood ee Soomaaliland iyo Soomaaliya Talyaaniga iyo Ingiriisku ay kala guuleysanayeen muddada kooban ee laga joogo haddii soo qaadano eriyadii uu madaxweyne Farmaajo ku qodbadaynayay habeenkii oo runtii arlaxaad fara badan iyo afkaad badan ku mudday shacabka Soomaaliland uu soo jeedinayo waxaad moodaysaa in muddo 7 cisho kadib ah furay oo wixii dhawaaqii inay koodii July haddana 6dii July markaad arkayso waxa dhacaya xamar ay ku dhawaaqayso ay tahay wax yacni aan marnaba midnimo Soomaaliya iyo walaalnimo iyo amnimo iyo baxda yacni xuduudkii يعني قال halka uu marayo ama dhawaaqii shalay uu madaxweyne Farmaajo Soomaaliland baan garab iga maqan weeyaan Berlaxawsigii ma 7 cisho guraya waayay yani shacabka reer Soomaaliland waxyaabaha ay u qaadan waayeen waxa kamid ah ninka doonaya inuu midnimo dib u soo celiyo dariiqa uu hayo ma yahay kii lagu midoobi lahaa yani waa su'aal isweydiin leh waxa kaloo isweydiin leh inay meelaha qaar dii yani madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland maanta khudbadiisii waxa kamid ahayd ninka madaxweynaha Guinea waa nin aanan afna wadaagin ma aragtay aanu kala fognahay runtii laakiin kii dad iigu xigay ila dhashay ee walaalaha ay ahaa dagaalka uu igu wado ma aragtay ninka intaa ii jira ayaa ma aragtay kolka yani waa arrin sii kala durkinaysa oo muujinaysa inaanay marnaba xukuumadda xamar ka talisaa aanay inay ummad isu keento in Soomaali dambe la maqlo kolka inay cadaawad sii kala dhex dhigaan shacabkii baa la maraya maaha awal dagaalku madaxdunbuu ku ekaa iyo mas-uuliyiinta kolba xilalka haya qaranka ayay ka dhexaysay arrintu laakiin iminka waxay u gudubtay shacabkii bay u gudubtay inaan koob maaragtay la dhaqaaqin oo curyaamin diblomaasiyadeed curyaamin dhaqaale curyaamin horumareed yani markay xamar wado nidaamka caynkaasi muxuu noqonayaa Soomaaliland aragti nooceeya ayay ka qaadanaysaa waa arrimaha safarka madaxweynaha dareenka ku saameynta badan yani sameeyay oo socdaaladii madaxweynuhu ku bixi jiray socdaal ka duwan waxyaabaha keenay waxa weeyaan maaragtay dagaalka iska daba joogga ah ee labada cisho u dhaxeeyay maaragtay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya oo 24 saacadood u dambeeyay maaragtay uu ka soo saaray 2 shir jiraayid ama 2 baaq ama 2 maaragtay adduunyadii la hadlayo oo uu leeyahay sidee Soomaaliland halka ay u gaadhay maanta arrinkaasi wuxuu muujiyay wax hore oo reer Soomaaliland ka bogsanayeen ayuu horta nabar hore u danqayaa oo dib u soo celinaya runtii laakiin shacabka reer Soomaaliland iyaga mar walba way ka go'an tahay ummadda uu hogaaminayo ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi wadeenka ka yahay shacabkani waa shacab isku tashaday waa shacab waraaqo iyo dacwado la gudbiyay iyo waxaasi toona ka soo gudbay oo aanay isku duubnidooda iyo wada jirkooda toona in wax sii tarto mooyaane in aanay maaragtay waxba hoos u dhigayn kolka xagga positive-ka marka laga eego dagaalka xamar ka socdaa Soomaaliland waxtar badan buu runtii u leeyahay inay reer Soomaaliland fadhiga ka kacaan inay maaragtay ay baalashooda la kala baxaan oo meel albaab kasta oo adduunka ay garaacaan oo ay qadiyadooda geeyaan oo ay xamar waxa ka socdana farta lagu fiiqo la yiraaho waa nimanka aanu shalayna gobonimadayadii iyo calankii aanu u geynay 30 sano 80 sano marka 50kii waxaan kala joogaa 70 sano meelahaas laga dabadeed ayay haddana arrintii halkaa ay marinayaan
marka runtii xagga positivity-ga markaad ka eegto dagaalka ay xamar wado somaliland isku duubni ayay keentay wadajirkoogii bay sii xoojisay halganka ay somaliland ugu jirtay inay aqoonsi hesho ama inay adduunka xidhiir la samaysana ma aha wax ku istaagaya madaxweynaha soomaaliya oo hadla ama waraaqa qoraa ama waayo waxaas annaga wax yacni reer somaliland ay waxyeelayaan somaliland waxay diyaar u tahay inay nabad kula noolaato gobolka inay maaragtay saaxiimo arrimaha dhaqaalaha arrimaha wax walba la iska kaashado runtii laakiin dhinacii kale ma hayno ilaa imika waa si wanaagsan maxmed marka aad eegto walow baarlamaanka somalilan iyaguba ka dhawaajiyeen wadahadaladii somalilan iyo soomaaliya u dhexayn jiray oo muddo iminka la sugayay in dib loo yegleelo dibna loo bilaabo baarlamaanka somalilan uu dhowaan sheegay inay arrintaasi ka fiirsanayaan iyo xisbiyada siyaasadda ee dalka somalilan ka waran arrintaa wadahadaladii soomaaliya iyo somalilan ma is leedahay way halkaasay ku hakanayaan maadaama oo ay soomaaliya halkaa marayso mise waxaad is leedahay waa dib baa loo bilaabi karaa oo arrin lagu kala bixi karo weeyaan wallaahi horta sida ay xukuumadda iyo baarlamaanka somaliland iyo xukuumadda uu madaxweyne muuse uu garwadeenka ka yahayba ay qirsan yihiin iyo shacabka reer somalilandba horta madashii lagu wada hadli lahaa ma muuqan somaliland mar walba diyaar bay ahayd in la wada hadlo in la isqanciyo in maaragtay laga wada hadlo waxyaabaha masiiriga ah laakiin tii ma muuqato waxaanay ka muuqanin wacyiga ka taagan xamar ama maaragtay qaabka halka ay taagan yihiin ma aha mid keenaysa in miis la isugu yimaado oo la wada hadlo waanu ka gabanayaa runtii waanu ka gabanayaa madaxweyne farmaajo inuu somaliland miis la soo horfadhiisto waayo ma hayo wuxuu isku difaaco ma hayo inuu maaragtay dagaalka daha dabadiisa un ka hago oo maaragtay mooyaane laakiin haddii miis la isku soo fadhiisto wuxuu og yahay in qadiyadda somaliland iyo maaragtay qarannimadeedu iyo dooda miiska la keenaya ay xooggan tahay kolka isagu mar walba waa ka curyaaminaya in la wada hadlo horena u curyaaminayay dee iminkana bidhaantii wada hadalkuba ma muuqato kulley xukuumadda iyo baarlamaankuna go-aano way ka soo saari doonaan mowqifka laga taagan yahay wada hadalka laakiin jawi lagu wada hadlo maanta oo inoo muuqda oo maaragtay wax isku keenaya wax isku soo dhoweynaya oo maslaxad iyo nabadgelyo iyo walaalnimo ka turjumaya runtii ma muuqato waa si wanaagsan maxmed ugu dambayntii shacab fara badan oo reer somalilan oo ku sugan dalkan canada iyo nawaaxigiisaba iyo dhammaan caalamka oo si toosa kugu dhegaysanaya maxa aad kaga tegi lahayd dardaaran iyo runtii soo jeedinba shacabka reer somalilan sida tooska kugu dhegaysanaya wallaahi horta shacabka reer somalilan kuwa dalka gudihiisa jooga aad iyo aad baan u hambalyeynayaa sida ay u muujiyeen kolka shacabka gudahiisa waxaan leeyahay horta isku duubnaada maaragtay somaliland jiritaankeedu ma aha meel cidlaha ama si hawl yar ku yimid waa go-aan shacab dastuur baa loo qaaday kolka horta marnaba hadday 100 sano 200 sano ay noqonayso maaragtay midnimada iyo jiritaanka iyo mabda'a somalilandarnimadu ma aha wax horta laga noqonayo kolka waxaan leeyahay wadajirkiina isku duubnaada ummadaha kale ee aynu jaarka nahay ee soomaaliya ay ugu horeysana waxa mar walba inaynu nabad iyo walaaltinimo ayna dhex marto oo aynu sidii laba dal oo walaalo ah u wada macaamilo ayaynu maaragtay ha lagu baraarugsanaado oo inagu mar walba wanaag inu u haynaa ilaahay dhibaatada ha ka duqadaanu leenahay laakiin inay iska indha tiraan un baynu diidanay kolkaa shacabka reer somaliland waxaan leenahay mar walba isku duubnaada nabadgelyada iyo qarannimada iyo maaragtay aynu dhisannay innaga keensanay sacrifice badan baynu u samaynay kolkaa taasina ma aha mid maanta maaragtay muran la gelin karo cid meel ka hadashayna ma leexinayso maaragtay jihadii ay somaliland u socotay iyo ma aha mid leexinaysa waxaan leeyahay la isku duubnaado jirkiina iyo midnimada ayay ku jirtaa guushiya halkaa kasii wada ayaan leeyahay si wanaagsan maxamed aad iyo aad baan kaaga mahad celinaya sidaa wanaagsan ee qiimaha la waqtigaaga qaaliga aad noo siisay aad iyo aad baan markale kaaga mahad celinaya adigaa mudan aad adigana gaar baan ku salaamayaa iyo idaacaddaba maxamed axmed cige waan idin salaamayaa iyo dhammaan ummadda kaleba
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa maxamed aadan gacayti oo ku sugan magaalada hargeysa aqoon-yahan siyaasi ahna mas-uuliyiinta sarsare ee xisbiga talada dalka Soomaaliland hay ee kulmiye